qaraxaasi waxa uu ka dhacay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka horteeda halka jirgarood jira kuwait la yidhaahdo waxa uu dhacay abaara qaraxaasi markay ahayd 12 duurnimo waxaa intaan si badan loo ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay haddana warar soo baxay waxay sheegayaan in halkaasi ay ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka iyo sidoo kale ilaaladiisa qayb ka mid a ilaa iminka cid dawladda ah ama la xaqiijisay aysan jirin xiriiro kala duwan aan la sameyn isbitaalada qaar ee magaalada nooma suurtagelin si aan arrintaasi xaqiiqadeeda u raadino balse iminka khasaaro naf iyo maal iyo dhaawacbana ayaa halkaasi ka jira ilaa iminkana goobtii ayaa askarta ku sugan tahay oo qaraxu ka dhacay oo uu dad xoogla ka kacay qaraxu marka ma gaari baa lagu xiray mise gaari isu soo miidaamiyey buu ahaa mise qof buu ahaa see ahna gaari basaaja oo waxaa qarxa laga soo bixiyey ayaa lagu dhiftay gawaaridaasi ciidamadu la socdeen oo goobtaasi marayay dabadeedna halkaas uu qaraxu ka dhacay oo dhibashadaas ayaa jirta hadda meeshu waa sidee iminka askar baa ku sugan ammaankaana aada loo xaqiijinaya meesha lamana ogola in wadada la maro la isticmaalo maadaama meesha ay ahayd goobta halbowlaheed ee laamiga ee ay isticmaali jireen gawaaridu cid inay gudubto na lama ogola in la marana lama ogola welina ciidamadii ayaa ku sugan waxay jirtaa askar ku dhimatay meesha walow laleeyahay gudoomiyihii gobolka uu dhintay haddana si cad looma xaqiijin ilaa iyo iminka u jirta cid si dhaba u xaqiijisay geeridiisa balse waxaa jira in warar aada lasoo dhex maraya baraha bulshada iyo qaar ka mid a magaalada gaalkacyada laleeyahay gudoomiyihii waa u dhintay laakiinse ilaa iyo iminka anugu ma hayno cid si dhaba looga xaqiijisay geerida gudoomiyihii gobolka madaxweyne gaariga marka gaariga bajaajta halkaas igu celi ma waxaa lagu dhuftay gaariga guddoomiyaha mise gobolka la geliyey gawaaridii goobta maraysay ee laleeyahay guddoomiyaha gobolka ayaa la socday ayaa lagu dhuftay gawaaridaas gaariga bajaajta ah oo wadada iyadoo maraya ayaa isku dhaceen gawaaridaasi markay isku dhaceenna kadib waxaa dhacday halka khasaarahaas inuu ka yimaado gawaaridiina way gubteen oo meesha waxa yaalla gawaaridii iskii isqarxiyey iyo kuwii lagu qarxiyey